السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو وعن وناكسن إذا لهانتي باقيار تيدقيم عي شرف تمدن waxaynu soo gaarnaa hadii aan idin soo tabin jirnay war wixii guud ahaan naga soo gaaray deegaanka iyo dalka dibadiisa waxa si toos ah idin ku waramaysa anigu ah Bonugas qodobada wararka xilli tabinteena wareed ugu doorka roona waxa kamid ah dhalinyarada dulmideeda ayaa booqasho ku soo maray magaalada Qabridahar iyo magaalooyin kale oo deegaanka qaar kamid ah bulshada ku dhaqan magaalada Goday ayaa sheegay in dhaqdhaqaaq ganacsi ee magaaladaasi uu yahay sidiisii caadiga ahayd wararkan idinka hayno dalka dibadiisana waxa kamid ah magaalada Nairobi ee caasimada wadanka Kenya ayaa lagu qabtay munaasabad lagu maamuusayo sanad guuradii 4aad ee ka soo wareegtay dhimashadii madaxweynihii hore ee Jomo Kenyatta qodobadan iyo qodobo kale oo faahfaahsan u diyaar garooba dhameystirkooda markale kulantu wacan oo xiisa xambaarsan warkii oo dhameystiran dhalinyarada dulmideeda ayaa booqasho hawleed ku soo maray magaalada Qabridahar iyo magaalooyin kale oo deegaanka warbixin murtaas ku saabsan waxay noo eegay wariye Lumaan Cabdi Axmed dhalinyarada dulmideeda oo dhawaanahanba ku sugnaa xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga ayaa uga ambabaxay magaalada Jigjiga dhanka iyo qaar kamid ah gobolada deegaanka ayagoona markii ay ka ambabaxeen magaalada Jigjiga ugu horeynba gaadhay magaalada Qabribayax waxaana halkaas soo dhaweyn diiran kala hor yimid bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan magaaladaasi oo u kala hadhin caruur iyo orolaba intaasi kadib markii waftigani ay ka ambabaxeen maamulka magaalada Qabribayax ayaa waxa ay gaadheen degmada Ararso ee gobolkaasi Jarar waxaana halkaas soo dhaweyn ballaaran kala hor yimid bulshada qaybaheeda kala duwan sida odayaasha waxgaradka hooyooyinka dhalinyarada ee ku dhaqan degmadaasi Ararso guuleysan leeyahay Ararso meel walba aad joogtaan geesinimaad muujiseen waa geesiyaasha waa idinka guushii waynu hantinay inaynu xajinaa hadda loo baahan yahay midnimo walaaltinimo Soomaalinimo ayaynu ku xajinaynaa wax Soomaalinimo ka yar inama deeqdo qabiil inama deeqo dhammaantiin waan idin salaamay ilaahay baa mahadle maanta nabad qabis u keenay waqtiyo badan baynu kala maqnayn ina kala fogeeyay nabadgelyo la'aanteed maanta cadaalad iyo sinaan baan haysanaa waxaan u baahanahay midnimo Soomaalinimo dulmi ma rabno soo dhaweyn iyo wada hadal kadib waxay waftigu uga ambabaxeen degmada Ararso ee gobolkaasi Jarar dhanka iyo magaalada Dhagaxbuur waxayna waftigu magaalada Dhagaxbuur ee uga sii ambabaxeen magaalada Qabridahar ee xarunta maamulka gobolkaasi Qoraxay ayagoona sii maray degmooyinka Burqoda iyo Sheegoosha ugu dambeyntiina waxa ay gaadheen magaalada Qabridahar ee xarunta maamulka gobolka Qoraxay waxaana halkaas soo dhaweyn aad u ballaaran kala hor yimid bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan magaaladaasi Qabridahar waxayna waftigii iyo waliba bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan magaaladaasi ay kulan ku qaateen hoolka kulanada ee magaaladaasi ayagoona ka wada hadlay sidii markaasi si isku duubni ah ay uga wada shaqayn lahaayeen howlaha nabadgelyada horumarka cadaaladda iyo waliba maamulka suubana waxaana ugu horeynba kulankani furay odayaal dhaqameedka iyo waxgaradka ku dhaqan magaaladaasi Qabridahar maanta waxay noo tahay laba iidood oo waaweyn bay inoo tahay ruuxii garanayo iid waa iidul axad ahaydaynu gudannay iidna waa iidan maanta dulmidiid ilaahay inoogu keenay Qabdaar labada iidood farxadoodii baan idinku wada salaamaynaa waxaan doonaynaa maanta waqtigan aan joogno guushii waan gaadhnay laakiin waxay u baahan tahay ambaqaadkeedii hagista dambe yaa waxaan doonaynaa dad hanta inay hesho baan doonaynaa hagista dambaan waxaan u baahannahay dad hanan kara shaqadii aad qabateenna maanta waynu haynaa caanaheedii in aan maxaan ku idhahdaa waa idinku soo dhawaynaynaa Qabridahare waanu idinku soo dhawaynaynaa waa idin jeclayn waa idin doonaynay aragiinaan jeclayn ilaaha waxaanu mahadinaynaa maanta idinkii iyo annaga isu kaana keenay
oo qabri dahare inaan idinku soo dhaweyno ay noo suurowdaan ilaahaasaan u mahadnaqaynaa wixii qodobaa ay inoo wadeen iyagaa inoo warramaya annagu waanu soo dhoweyn yaanu ku leenahay soo dhoweyntanadii iyo mahadnaqiina waan jeedinay shirku waa inoo furan yahay sidoo kalena waxaa kulankaasi ay wada yeesheen dhalinyarada dulmidiyada iyo weliba bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan magaalada qabridaar ka hadlaya dhalinyarada dulmidiyada oo isla markaana halkaasi ka soo jeediyay hadallo kala duwan waxa aynu hadda u baahnaa waxay tahay ma aha wixii hore inaynu ku mashquulno ee waa inaynu wax ka baranno mustaqbal wanaagsanna aynu wada dhisanno oo dadku ay xor u yihiin dhaqaalahooda ama ganacsiga siyaasadda aragtidooda fikirkooda qofna aan lagu caburinaynin aragti kale buu qabaa ama wax kale uu aaminsan yahay ujeeddadan waa intaas waan ogahay dad badan baa been loo sheegay waxaa lagu yidhi qolaa soo duushay ree hebel baa idinku soo duulay ina hebel baa saa sameeyey cidna idinkuma soo duulin qabri dahar idinkaa iskale hibanuuraba waxay dhihi jirtay qabri dahar ana iskale idinkaa iskale qabri dahar cidna idinkama qaadi karto cidnana idinkuma soo duuli karto qoraxa idinkaa iskale idinka inaad doorataan dad idin maamula oo ahlu xalli wal aqdi dadka aqliga u saaxiibka ah xigmadda u saaxiibka ah aqoonta leh garashada leh waxa farxadii aha inaan idin la ciidayo anoo idin kula ciidaya ciidii Arafa iyo ciidii Dulmidiid inagoo xor aha nabadii caana qabri dahar oo waliba ay tahay wiilashiinii aad dhasheen meesha ay ka aasaaseen Dulmidiid in dulmiga la qaado oo maanta idin la fadhiya waxaan ogsoonahay inuu xanuun badan idin soo maray oo xadhig aha dil aha caburis waxay ahayd nasiib darro inagu dhacday laakiin maanta waxa ah nasiib wanaag inaan wada jir ay wixii taariikh laga sheekeeyay ay u yihiin oo aan ka soo gudubnay oo aan gacmaha is haysanno dhammaanteen dal iyo dibadba waa laba ciidood oo isgalay waa ciid aanu dadka iyagii la joogno iyagoo xor ah oo garashadoodii iyo ikhtiyaarkoodii iyo xorriyaddoodiiba ay u madax bannaan yihiin sida iiga muuqata kulankan ballaadhan waxay ii muuqata dad ikhtiyaarkoodii ku soo baxay oo ku soo meel maray inta keliyaannu doonaynana waxa weeye bulshada ikhtiyaarkeeda loo celiyo inta aanu idin wadnay maanta xisbi ma nihin xoolo raadis ma nihin xukundoon ma ahin waxaanu raadinaynay inaad xorriyaddiinnii laydinka qaaday laydnii soo celiyo ood idinku doorataan dookha aad yeelataan qofka aad xilka saaraysaan kulankani ay yeesheen bulshada qaybaheeda kala duwan sida odayaasha waxgaradka hooyooyinka dhalinyarada ee ku dhaqan magaalada qabridahar iyo waliba dhalinyarada dulmidiid ayaa ahayd mid ay markaasi ay kaga wada tashanayeen siday markaasi si wada jir ay uga wada shaqayn lahaayeen howlaha horumarka nabadgelyada cadaaladda iyo waliba maamulka suuban iyo waliba siday bulshada reer qabridahar oo isku duuban ay u barbar istaagi lahaayeen isbeddelka ka dhacay dalka iyo deegaanka Lumaan Cabdi Axmed telefishinka caalamiga ah ee ESTV bartamaha magaalada qabridahar ee xarunta maamulka gobolka Qorraxay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Goday ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqi ganacsi ee magaaladaasi uu yahay sidiisii caadiga ahayd waxaan ka hadlayaa maanta rashbadii dhacday maalmaha dhaweyd oo la dhihi kara si qalad ayay u dhacday waxay ahayd hal maalin rashbadaasi kadib alxamdulilah rabbil caalamiin way degtay rashbada waxaa ka dambeeyay dad dana gaara leh oo waxa weeye aan rabin nabadgelyada deegaanka iyo dadka wada noolaanshaha ummadda deegaanka ama Itoobiya oo dhanba saad ogtiin waxay wax soo gaareen dadkii deegaanka joogay ee qoomiyadaha kale ee Soomaalida ahayn
alxamdulilah arrintaa howlgal badan baa laga sameeyey waxaa arrintaa ka howlgalay ugaasiyada magaalada Goday dhalinyarada hooyooyinka ganacsatada xaaladaasna si weyn baa looga qayb qaatay dadkii waxyeelada loo geystayna waa la caawiyey alxamdulilah haddana magaaladu sideedii bay ku soo noqotay ganacsigu waa furan yahay bangiyadii waa la furay adeegyadii oo dhan baa socda diyaaradii baa degaysa oo shacabkii Addis-Ababa ilaa Jigjiga ka soo qaadaysa alxamdulilah rabbil caalamiin in badan magaalada ku noolaa magaalada Goday in badan baan ku noolaa shaqaale waan ka soo noqday ilaa Hayle Salaasi oo nin odayna waana ilaa Hayle Salaasi ingista Hayle Maare kulli dawladda alxamdulilah rabbil caalamiin laakiin toddobaadyada wixii dhacay wax mucjisa ahayd oo itixaam aan soo maray bay ahayd itixaamkaana waan ka gudbinay ilaa baa mahad in ay ganacsatadii ay caadi magaalada ay u furan tahay isku socodkii gaadiidkana ay furan tahay wax dhibaato ah ayna ka jirin taasoo macnaha ay u soo kaceen dhalinyaro da'yar isla markaana ay ka hortageen dadkii dhibaatooyinka iyo macnaha magaalada rabay rabshado inay geliyaan waxaana garab ku siiyey odayaasha ugaasiyada uqaasha ilooyinka dhalinyarta intaasoo dhan macnaha iska kaashaday waxaana shacabkii ay waxyeeladu ay macnaha intii yara burburka ay gaadhay loo qaybiyey raashimo alaabtoodina dib baa loogu soo celiyey aad iyo aad bayna magaalada u degantahay una xasiloon runtii dhibaatadii dhacday maalinkii dhaweyto waxay ahayd dhibaato si kadiisa ku dhacday aan la filanaynin cid kastaana maxay ahayday la yaab ku noqotay dhibaatadaas waxyeello ay ku soo gaadhay qaar ka mid ah muwaadiniinta ku nool deegaanka hawba u badnaadaan qoomiyadaha kale run ahaantii dhibaatadaasi dhacday waxaan rajaynaynaa inayna mar dambe nagu dhicin oosan sidaas aysan u dhicin xalalna waa laga gaadhay oo maxay ahayday culimada odayaasha ugaasiyada si fiican bay ugu howlgaleen aad baan ugu faraxsanahay in abaabulka noocaas ay ugaasiyadu sameeyaan waanan maxay ku faaninaa inaan durba macnaha si degdeg ah looga jawaabay dad macnaha la gaarsiiyey ummadii waxyeelada soo gaadhay macnaha loo celiyey maxaa la yiraahdaa waxyaabihii maxaa la yiraahdaa caawimaad la gaarsiiyey waxaan ka hadlayaa waxoogaa yarka shaqaqada ay ka dhacay magaalada dhexdeeda midaas oo macnaha arin ma taqaanaa dadka wax bangaratada ay sameeyeen marka waxaanu leenahay macnaha dadkaasi iyada oo ma taqaanaa wixii hantidoodii ama wixii hawlaha boqolkiiba 80 loo soo celiyay ama يعني wixii kale dadka kale ee shacabka ama dadka ganacsatada ay sameyn kareen ee ma taqaanaa caawimaad ay u sfidiyaan dadka walaalahooda ee waxyeeloobay macnaha loo sameeyay oo ilaa hadda masaajidka ha noqdo macnaha dadka shacabka ganacsatada ha noqoto laga macnaha loo sameeyay dadkaasi in noloshooda caadiga dib loogu soo celiyo macnaha taas ayaa dadkii la sameeyay hadda macnaha magaaladu way degtay way fiican tahay xaaladeedu aad bay wanaagsan tahay khaas ahaan bunugti waa la furay oo waa kan bangi gameka uu furan yahay kii weynaa iyo kii yara kulligood way wada furan yihiin shacabkiina hadda macnaha nin walba adeegiisi iyo caadiga hanaanka caadiga ah buu wataa waxaan ku suganahay Goday Kacda qaybta Axmaar Safar timaha ayaan jeernayaa saa u aragtaan waxa weeye rabsho way dhacday alxamdulillah laakiin maanta waa nabad qabnaa Goday maalinka u horeeyay arrinkii dhacay wixii ka dambeeyay dib baan isku qabanay maxaan ku dhahay wadaadadii iyo culimadiinkii iyo maamulkii wax oo dhan gacmahooda jiraan isku qabsanay hadda nabadgelyo ayaan ku jirnaa alxamdulillah wada artaan waa iska jarnaynaa shacabkii shaqadii wax walba nooc walba way socotaa sadarkaysan gaadiidkii waa caadi ugu socdaa waxa kale to xarumihii dawladda sida telecommunicationkii bangiyadii waxa kale to airbalaankii oo ma taqaanaa dawladnimaadyadii ah dhamaan sidii normalkeed bay ku soo noqdeen way shaqaynayaan ganacsigii kale ee meheradihii magaalada ayagana sidii sileeg way shaqaynayaan magaaladu caadi weeyaan nabadgelyadeedu wax dhiba kama jiro arrintaana waxa u istaagay oo geed dheer iyo geed gaaban u fuulay inay magaaladu xasiloonaato odayaashii magaalada culimadiinkii magaalada iyo dhalinyartii magaalada baa u istaagay waxaanu leenahay oo ka dardaarmayna insha Allah nabadgelyadu waa shayga ugu muhiimsan ee lagu noolaan karo hadayna nabadgelyo jirin ganacsi ma jirayo
bangiyadan aan lacagahu inoo yeelaan ma isticmaali karno maalmihii dhowad waxayna gaadhay wada ogeydeen adeeg la'aan baa inagu dhacday ganacsigii wax laga iibsadaa la waayey xoolihii noolaa ee sayladda imanaya wax gataa la waayey arrintaas dib dambe inayna u soo noqonin ayaan ballan qaadaynaa insha allah xagganaga haddana waxa weeye nabadgelyadu sideediiba ku soo noqotay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay wax nabadgelyo loo dhigo ma jirto deegaankeenuna wuxuu caan ku ah wada noolaansho iyo nabadgelyo iyo is-ixtiraam oo ay sheegaysa diinteena islaamku in dadka inagu dhex nool aan waxa weeye wax dhibaataa loo geysanin waxaan fariin u dirayaa dadku way wada degan yihiin waa wada nool yihiin bulshada way wada nooshahay hal bulsho keliya oo meel ku nool ma lah in ay deriska la ilaaliyo xuquuqda dadkoodana la ilaaliyo diimahana aan la faragashanin waxaanu leenahay meel kasta oo arrintaa ay ka dhacdayna waa in lagu daydo gobolka Shabeelle degmada Goday ismaamulka magaalada Goday khaas ahaan waa in dadkaasi dib hantidooda loogu celiyo cidii mataqaanay wax ka haysa oo macnaha haba noqdo xataa wax kale iska daa shay yar ba ha noqdo haduu rabo taas macnaha waa taas weeyaan waxaan marka fariin u dirayaa khaas ahaan walaalaha anaga aan wada noolahay in macnaha arintani arrin qalad ah oo ay dhacday ay tahay raaligelinna laga bixinayo hadii Ilaahay yiraahdo insha Allah taala dadkoo dhan iyaga oo nin weyn iyo nin yar ama dadoo dhan loo siman yahay arinta ayadahay in raaligelin laga bixiyo Goday maanta alxamdulillah rabbil bangiyada baa naloo furay Ilaahay baa mahad odayaal waxa jira dharaatida weyto xogaagii dhacay dhaqaala dadkii waa dhaqaalaan u ururinay odayaashii kacay baan ahaanu dhaqaala loo ururiyay dadkii alxamdulillah rabbil caalamiin duqeyd fiican baanu leenahay duqeydeenadii way kacday inaanu dadka walaalahana wax la yeeleeyay waxoodii inaanu ku celino ayaanu ku wada tashanay niyadaanu saa gelinay marka waana sameeynay alxamdulillah rabbil caalamiin waxyaalaha ka dhimana waanu dhameystiraynaa waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabweynaha ku nool DDSI inay ku dadaalaan nabadda inay magaranaysaa ay badbaadiyaan dhammaan shacabweynaha ku nool ee walaalaha la ah sida dad kale ee walaalaha la ah ee Itoobiyaanka ah inay antidooda iyo magaranaysaa naftooda ay badbaadiyaan sababtoo ah waa dad nool waa dad intaas nool ah waa dad walaalaheena fikirka xun ee la aaminsan yahay sida kala ah in shacabka laga dhax saaro ayaa muhiim ah oo wax saxan la tuso waad aragtaan timi baan jarnaynaa waanu sheegay hawlahan ee wadana ganacsiga baa socda nooc walba wax walba uu socdaa rabshada hal maalin baheed maalinkiina waan kabsoonnay marka waxa loo baahan yahay in kor loo socdo wadanka la ilaashado waxaan aad iyo aad ugu baaqayaa in lagu dadaalo xasiloonida iyo nabadda nabaddu waa shay qaali ah innaga u baahan dad kasta u baahan Itoobiya u baahan Afrika u baahan adduunka dhan u baahan marka nabaddu waa shay qaali ah cid kasta waxa waajib ku ah inuu ku dadaalo nabadda waxaan dareennay wada noolaanshaha Itoobiya inuu qaali yahay in nabadgelyadu qaali tahay war miyayna haysaa Soomaaliland dareemin nabadgelyadu inay qaali tahay Soomaaliland dareemin aniguna saasaan dareemay waxay ahayd ficil shaydaan waxa ficil shaydaan oo dhacay waxa mardan waxaan rajaynaynaa inaysan dhicin marka insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo waxaan u sheegnaa dhalinyarada maxaa la yiraahdaa maamulka magaalada Goday iyo dhammaan dhalinyarada deegaankaba in ficilkan mar dambe uusan dhicin maxaa la yiraahdaa haddana wixii ka dambeeyana la wada noolaado qaar ka mid ah iskaashatooyinka wax soo saarka beeraha iyo naaxinta xoolaha ayaa waqti xaadirkan goosanaya dalagii ay beerteen warbixin murtaasi ku saabsan waxay noo eegay wariye Maxamed Xasan iskaashatada al-mushtaraka oo kamid ah iskaashatooyinka ka jira maamulka magaalada Jigjiga isla markaana ay sameysteen muwaadiniin iskood isku abaabulay kuna howlan wax soo saarka beeraha iyo naaxinta xoolaha ayaa waqti xaadirkan ku mashquulsan goynta dalagga iyo qudaartii ay beereen sanadkan iyadoo waqti xaadirkan iskaashatadu ay 200 oo kintaal oo basal ah ay u soo go'day maxamed yuusuf cali oo ku magac dheer maxamed cashuur waa gudoomiyaha iskaashatada al-mushtaraka oo ku dhiiratay inay ka faa'iideystaan kheyraadka deegaanka hodanka ku yahay iskaashatadan beeraha ka samaysatay agagaarka gidibka magaalada Jigjiga ayaa maxamed yuusuf cali oo kamid ah xubnahan ku midoob iskaashatadan waxa uu sharaxaad ka bixinayaa ujeedooyinka ay aasaasan iskaashatada iyo wax soo saarka iskaashatada al-mushtaraka macna waa wax soo saarka beeraha iyo naaxinta xoolaha sidaad ku arkaysaan macna wixii beerta ka soo baxa in lagu isticmaalo xoolaha oo lagu naaxiyo taasoo ujeedadeedu ay tahay si loo kordhiyo faa'iidada ay helayaan dadka macna kamid ah iskaashatada ee hantidooda geliya
xilligaad asaasteen ilaa hadda isbeddelka samaysan maxaa ka mid muddadii aan asaasnay dee waad garanaysaa shay marka la asaaso macnaa investment baa la geliyaa oo marka hore macnaa kharash baa ku baxaya marka dambe waxaa bilaabmaysa inay beerta wax soo saarkeygii bilaabmo marka iminka waxay ku jirtaa dee waqtigii ay soo celinaysay wixii hore lagu maalgeliyey dhanka kale oo kale maadaama iskaashatooyin kala duwan ay jiraan oo noocaga khibrad iswadaarsi ma samaysan haa waan samaynaa iminka dhagax loo kale ayaan leenahay inta joon macnaa siirarka iyo waraabinta iyo waxyaabaha la isticmaalayo aanu iska kaashanaa marka macna xaggaana faa'iido weyn baanu ka helnaa maxamed yuusuf cali gudoomiyaha iskaashatadan ayaa sheegay in iskaashatadu ay soo saartaan noocyada kala duwan ee qudaarta waxaana u sii dheer naaxinta xoolaha iyadoo ay u suuq geeyaan deegaanka iyo magaalooyinka kale dalkeena Itoobiya waxaa ka mid ah basasha tamaandhada galleyda hadhuurka tasaa ka mid ah dhanka kale waxaad sheegtay inay barbar socoto dhanka naaxinta xoolaha waxay adhiga lo'da intaan soo iibino oo lagu isticmaalo wixii by productkii wixii ka soo baxay beerta oo la siiyo xoolihii markay naaxaan dibadna dib loo geeyo sayladii oo lagu naaxido macnaha markay naaxaan qiimihii baa kordhaya soo iyaguna xaggaa faa'iiday ka keenaya hadda xilligan aan joogno wax soo saarka bal ama waan adeegsanaysaan ama waxa aad ka soo saarteen dhanka basasha kale imika waqtigan maanaan isticmaalin waxyaabihii teknolojiyadii ama selected seedskii iyo fertilizeradii waxyaabihii maanaan isticmaalin oo waxyaabihii organic ahaa marka waxay soo saartay imika waa minimum production baa la odhan karaa imika ilaa 200 kintaal baa imika soo baxay laakiin mustaqbalka waxaan rajaynaynaa in la isticmaalo fertilizers iyo selected seeds iyo macna waxyaabaha dee soo saari kara high production samayn kara inaan isticmaalo ayaa noo qorshaysan si uu u kordho macna dakhliga beerta ka imanaya suuqa berigii hore macna waxay u bixi jirtay xaggan jigjiga laga bilaabo jiidahan bay u bixi jirtay laakiin imika Ethiopia macna jigjiga Harar Diridhaba Naasreet way qaadanayaan xaggaas ay socota xaggaas ay u baxaysaa iyaga halkan imanayaan ku iibsanayba oo imika ninkii Harar ka yimid baa lacagtii bixiyay waaba halka taagan imika uu sugaya uu raranaya tayada basasha ka waran bal deegaanada kale marka la barbardhigay deegaankeena dhanka basasha tayadeedu aad bay u fiican tahay de wax raadina kuma dhicin biyo gidibkaanu isticmaalaynaa macna waxaan noo ku dhacayna imika distrib ma jirin marka aad bay u fiican tahay nimankan suuqa geynayaana markay eegeen waa aad bay u fiican tahay bidha iskaashatadan ayaa waxa shaqo abuur ka helay 15 xubnood oo noloshooda siyaabo kala duwan ugu maareeyay iyagoo muddadii ay jirtay iskaashatadan ka helay khibrado badan oo dhanka wax soo saarka beeraha waxaan ka shaqaynaa bustaankan maxamed cashuur qabalaygu waa laan barako in badan baan ka shaqaynay muddo ilaa 5 sanadood ayaan ka shaqaynay si fiican baan wax uga fahnay wax soo saarkii baan fahnay marka hore maanaan aqoon dad waxaan ahayn xoolo dhaqan jiray geeda iyo waxaan maanaan aqoontii khibrad maanaan lahayn laakiin eega waan fahnay geedaha laga beero waxa ku jira kaaro kaabash salad baytaraaf haddii ilaahay yidhaa basal ayu nooc baanu beeraa si fiicanna wax baan u fahnay waxaanu soo saaray basal kaabash xitaa waxaa noogu yaalla liin kaarood qaji waxyaabo badan noloshiina isbeddel ma ku samayseen dhanka dhaqaalaha haa waan ku samaynay gelin iskaashatada kolka hore aan ka shaqeeya gelinka dambe sacahayga iyo beertayda ayaan ka shaqeeyaa hore oo shirkadan imanaysay iminka marka dhaqaalahaaga la eego maxaa isbeddel 100% ba isbeddel yihiin marka imika wax ka mid ah imika waan aad baan markaa bilaacama yar ahayn shaqadan dee saawsi faraha badan mana aqoon tareemiyo waxaan xoolo dhaqataa wax weyn ba noo soo kordhay dhaqaalaha iyaguna si hore maaha 100% bu koro jooga marka anagu waxaan nahay dad yawan shaqaalaha kamid ah shaqaalaadaan kamid nahayna wax weyn ladaan soo saarno wax kamid ah waxa beerta ku yaala imika muuqdo oo kamid yahay kaarooga leenta basasha ayuu nooca kamid yahay noloshiina ma ku maareysaan shaqada beerta meel kale waxba uma doonano wax waliba fadhiga geed oo dhan halkan noogu yimaada dadkan deegaanka degan inuu sida maxamed cashuur dhulka wax kala soo baxo dhulkuna wax soo saarka looga faa'iideysto waxa weeyaan deegaanku inuu dhulka u foorarsado oo shaqada dhulka wixii la beeraba uu soo saaray laga soo baxo qorshaha aan higsanayna waxa weeye inay dadka ka mida iskaashatada ay mustaqbalka gaaraan isku filaasho wax fiicanna ka soo saaraan oo dadkii muwaadiniinta mar hadday aqoontan yeeshaan wax soo saarkan sameeyaan macna waxa kordhaya GDP-gii oo macna dakhligii dalka qayb bay ka tahay dadkiina waad arkaysaa 15 qof oo shaqadii xirfadii baranayay oo intay bilaa camal noqon lahayn
dee iminka shaqadii hayo wax soo saaraya oo daklina ka helaya marka dalka horumarkiisa dee qayb bay ka tahay bees bay ka tahay waad ogtahay beeraha kale dee muhiim bay inuu macnaa wax soo saarku kordho iskaashatadan almushtaraka oo la aasaasay sanadkii 2005 ayaa waxa ay soo saartay noocyada kala duwan ee qudaartii weliba dalagga beeraha oo kaalin ka qaatay qorshayaasha lagu dhimayo dhanka saboolnimada waxaana haatan iskaashatada ay doonaysaa in ay sii dardargeliso qorshayaasha u dejisan ee dhanka wax soo saarka